سيدا عديد مالا لكن قفيو وعافمات قضى ووح يعني هذا دكتور أما قري أما يري بلاتاس أيا كون عضي هلقا بدلو سلالي الوشو اللي أنا هين وغفروا سيدي سكا إنه خيادين هايو قروش ضعيقيس ياليسا وفروري لو وينيو انتير بدل ودرو كنت احنا فيرسان كرما دك markii arkaan xataa aad uma jeclaysanayaan marka taasi waa wax yani bedel lagu sameeynayo sidii qofku uu Ilaahay ugu talagalay marka arintaas ayada ahna sharcigu ma ogolo waxaarta runtii yani waxyaabaha dhacaya oo hadba xilliga markii joogaba wax soo baxayaan diinta islaamku yani waxyaabaha hore uga hadashay ayaa hadana si ay ahayd si waaqic u si ah ayaa loo sii dhawaanayaa quraanku Ilaahay wuxuu leeyahay shaydaanku markuu u qorsheeyo dadka xumaatada ayaaba ay sameynayaan waxa kamid ah fala yughayiruna khalq Allah khalqiga Ilaahay ay bedelayaan ama doorinayaan bari hore intaan hadda waxyaabaha hadda la sameynayo ayna soo bixin si loo fasiro waxyaabo iska basiiro iska fudud qofku wax weyn xataa bedelin ayaa ama waxaan loola jeedaa la dhihi jiray laakiin hadda si toos ah waxaan arkaynaa bedel oo lagu sameynayo hab abuurkii qofka Ilaahay uu abuuray taasna yani waxa loo yaqaanaa tajmiilka ama isqorshinta oo aan ahayn waxyaabaha la ogol yahay oo yani lagu daray ayay ka mid tahay taas oo qofka yani sidii Ilaahay uu abuuray si aan ahayn uu noqonayo qofka waxa rabaa inuu kalsooni muujiyo kuna qanco sidii Ilaahay uu ka dhigay Ilaahay ayaa insaanka qurxiyay إلهي يقول له لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم صوركم فأحسن صوركم إلهي سقرف طبعا أيودين سوري مركا إن صورة إلهي اللي بدله يعني ومن درقتكم يعني إلهي إسلام ما في أنا سكلا كثير في عن مركا لما كان عن وحياة ضرورة وأي كانت جرتاء مثلا qofku intuu shil baabuur galo tusaale ahaan waxyaabo ay ku dhacaan ama uu gubto مثلا oo yani fool xumo ah qofku uu noqdo oo shilkaasi uu sababay ama gubashadaas ay u sababtay oo qalinkii lagu sameeyo waxyaabihii tashawuhaadkii ama fool xumooyinkii shilku uu keenay laga baabiinayo oo si lagu soo celinayo taas ayada dhib ma leh laakiin qof oo caafimaad qaba oo wax yani hadda dhakhtar ama uu qoray ama yiri dhibaatadaas ayaa ku dhacday halaga bedelo oo sidaas lagu soo celi aan ahayn oo qofku sidiisa iska inuu raadinayo quruxda iigis yaalaysa oo faruri loo weyneeyo intiir badan lagu diro runtii waxa fiirsan kara ma dad markii arkaan xataa aad uma jeclaysanayaan marka taasi waa wax yani bedel lagu sameeynayo sidii qofku uu Ilaahay ugu talagalay marka arintaas ayada ahna sharcigu ma ogolo waxyaabo badan oo sharcigu uusan ogoleyn culimadana ay ka hadleen ayay bulshada Soomaaliyeed ay sameeyaan oo waxaaba kamid ah in aynan banaaneyn in isbedel aad jirkaaga ku sameeyso diinta aysan ku banaaneen haddana bulshadii way sameeyaan qofkii isaga oo og hadii uu wax ka baxsan shariicada islaamka uu sameeyo uu ku naartay karo haddana uu sameeyo qofka bal ka waran طبعا بني آدم كأدونك جوغاي إنه خلطماي أو قفة شكل كما جرو كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يعني قفك مركي الله الشيء وأنت عنين إن بنانين وعلماء الشيء وأصلا تسوق أبيهاي وحنا حاران تهاي مركي أو صمينايو وقف كل ينغنايا واحد دنبي أو اللي علمي أو دي إنه صمين طبعا دنبي ملاعيك أي قف والبقردية صارا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون waxaad sameynayso dhanna way ogyihiin hadhowna qof kasta wixii asagu soo samaysto buugiisa uu qoran baa la soo hordhigayaa marka dadka qofka iimaankiisa dad uu celinaya oo damiirkooda ka celinaya wuxuu Ilaahay ka xaaraantinimay ka joogaa in la dhaho way ka joogayaan oo sharcigan iyo ogoleen bay uga joogayaan dadka qaarna dhigdira uma siinayaan ayagoo ugu wixii khalad weyn ay sameynayaan kuwaas oo kale marka waa in loogu celiyo Ilaahay Ilaahay ka cabsada waxa mar walba culimada ay idaacadaha uga hadlayaan khudbada jumcada loo akhrinayo iidaha dadka loola hadlayo waa in sheekh khaldama ama qalloocada mar walba isku baraarujiyo dadka nafiyada shaydaan ayaa la xiriira waa la duufsanaya kuwa been u sheegaya yani kuwa si dhuminaya kuwa wuxuu leeyahay mesela sanad ku fiicantaad ku qurux badan tahay markaas yani qarka laga sii tuuraya marka qofka waxa la talaabo kasta uu qaadayo inuu miisaanka sharciga uu ku eego wixii shariicada ogoshaayna uu sameeyo wixii shariicada ogolayna inuu ka joogo qofka asaga ayaa ilaalin kara diintiisa ku dhaqmi kara Soomaaliya waxay ku maamada ilma ilaaliso laakiin haddana umada guud ahaan waxa la rabaa in ra'yi caan guud la sameeyo
wixii xumaata bulshadu inay ka soo istaagto qofkii yani inuu arintaas sameeyo ay ku dhici lahaydna hadduusan ilaahay ka cabsanaynin walba dadku wayna kula yaabin oo bulshadu ma aqbalayso waxane yani ilaa wax loo sameynaya qaar dadka waxay u sameynayaan inay ama kusoo caanbaxaan ama matalan lagu jeclaado oo saanaaba sidii jacaylka keenaysa ayaa laga yaabaa inay u sameynayaan haddii marka bulshadii ay caamkeeda guud u yahay qofkii wax sharciga khilaafsan sameynaya waa qof ilaahay ku caasiyey qof ilaahay ku caasiyeyna in wax lala wadaago ama wax lagu darsado ma ahane oo uu dareemayo in dembiga uu galay inuu bulshada kaga sii fogaado ma bulshada ugu soo dhawaanaynin waxaa dhici karta dadku inay iska daayaan marka waa in guud ahaan bulshadu mujtamacu noqdo mujtamac diintiisa ilaashada qof walbana mas-uuliyadda ka saaran uu qaato qofka dembiga samaynayana inaan loogu sii kaalmeeyo dembiga sii gale in laga celiyo loo nasteexeeyo waxaan adduun iyo aakhira kuma fiicna ilaahay ka cabso waxaan iska daa hadduu iska daayo ahlan wasahlan hadduu iska dayi waayana yani xisaabintiisa iyo dembi qoridiisa maalin waxaa imaan doonta qof walba la dhihi doono iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba wixii lagaa soo qoray akhri xisaabkana kuugu filan marka qof saas og marka inuusan wax xumaata uusan ku qoranin kitaabkiisa hadhow uusan ka shalayn kaas in lagu baraarujiyo markasta sida idaacadu ay sameynayaan waa waxa u fiican